السلام عليكم وتحنيهني أنت خريستوس حلقة دي تضباد فردولي دي معبدك سقال بقول يكون تصرك هردلشدي النبي عيسى إلى كن يسدح دي بقول qaybtan waxa uu kaga sheekeynayaa qoraagu dhacdadii uu ka soo faallooday xaqiiqadeeda waxa uuna leeyahay sida awgeed ayuu u noqday jimcaha ay bishu 13 ku beegantaa maalin la baasaysto balse sheekadan dabadeed anigu waxaan leeyahay waa maalin badhaadhe leh dhacdadan fardoolayda macbadka dhiganayaasha taariikhda oo dhan ayay ku xusan yihiin sidii foosha xumed ee ay ku wardambeeyeen ee loo gubayna way ku xusan tahay mufasiriinta islaamkuna marka ay marayaan aayadda haaruut iyo maaruut waxa ay ku soo koobaan inay sheedaamadu ku aaseen kutubtii sixirka kursiga nebi suleymaan agtiisa macnihii masjidka qudus hoostiisa kadibna uu sheedaanku dad gaara oo sharlowye ah isaga soo dhigay qof una tilmaamay kutubtii aasnayd wayna la soo baxeen balse mufasiriinteenu ma ay garanayn dadkaasi cidda ay yihiin xaqiiqada dhabta ah ee dhacday tan ayay ahayd waana anigaa kuu soo wariyey anoo weliba adeegsanaya afkii shaydaankii ay caabudeen ee Baphomet waa shaydaan sawirkiisu uu dhigan yahay orgi si isu dheeli tiran u fadhiya oo labadiisa gacmood midna kor u taagaya midna hoos u dhigaya waana orgiga ay aalaaba wajigiisa dhex dhigaan astaanta la yidhaahdo xidigta Daa'uud oo ah astaan shaydaan oo daran saaxirkii caanka ahaa ee Alistair Crowleyna waxa uu ka yidhi fardoolayda macbadka waa shaydaan caabudka saaxiibadood shaydaan caabudkii weynaa ee Anthony Levy oo ahaa ninkii ugu horreeyay ee kaniisad shaydaanka lagu caabudo adduunka ka dhisayna waxa uu yidhi waxa aan dib u soo nooleeyay cibaadadii fardoolaydii haykalka taa macnaheeduna waa inay shaydaanka caabudi jireen shaydaankaas Baphomet waa kii ay caabudeen fardoolaydii macbadku meel kasta oo ay ku cibaadaysanayaanna way dhigtaan wejigiisa iyaga oo weyneynaya oo sharfaya kutubtaas sixirka ay heleenna waxa ay bareen waxyaabo badan heer ay gaadheen inay noqdaan kuwa ugu hantiilaysan Yurub oo ay boqor iyo shacabba wax amaahiyaan iyaga ayaana dhisay bangigii ugu horreeyay ee deymo bixiya maadaama aanay kaniisadda kaatooligu ogolayn dulsaarkana weji kale ayay u sameeyeen ribadii oo waxa ay yidhaahdeen waa mushqaayad ama mushahar sababta ay Scotland ugu firdhadeenna waxa ay ahayd maadaama ay Scotland ahayd dalka keliya ee aan u hoggaansamin kaniisadda kaatooliga boqorkii Scotland ee waayahaas ee Robert Albersna gacmo furan ayuu ku soo dhaweeyay waxayna noqdeen hubkiisii dahsoonaa ee uu ku gumaaday Ingiriiska uuna madax bannaanida kaga helay iyagiina haybad weyn ayay ku yeesheen Scotland waxayna dhisteen macbadyo iyaga u gaara oo ay ka buuxaan astaamahoodii shaydaaniga ahaa balse markan weji kale ayay samaysteen oo ah inay gebi ahaanba iska qariyaan dadka caamada ah magacoodii ahaa fardoolayda macbadkana way bedeleen iyaga oo raad gadanaya oo isqarinaya waxayna la baxeen magac aad garanayso daawade magacaan loo filayn inay ragga sidaas u xun yihiin oo mar walba wanaag isku astura waxa ay la baxeen wastaadada xorta ah ama carabi ahaan albannaa'uuna al-axraar ama ingiriisi ahaan freemasons amaba sida ay caanka ku yihiin maasoniyiin Scotland ayayna ku dhammaystireen wixii ka qabyada ahaa oo ay howlahoodii ka sii ambaqaateen markana kaniisado iskuma ay qarinayn ee waxa ay cibaadadaas shaydaanka ku sameynayeen dhismayaal ay ula baxeen ingiriisi ahaan lodge carabi ahaanna maxfal soomaali ahaanna kulmis ahna dhismo hoosta uga dhisan qaaba haykalka nebi suleymaan ee ay ku naadiyayaan ee waxba kama jiraanka ah ee kitaabka Talmuudda sida xeesha dheer loogu falanqeeyay waxa ay ogaadeen in sirta ka dambaysa awoodoodu ay tahay dhuumaalaysigooda iyo dahsoonaantooda iyo inaan la baran oo ay wax walba sir u ahaadaan sixirkii shaydaanka ee ay barteenna way horumariyeen oo heer ayay ka gaadheen waxayna barteen qaab aad u cajiiba oo wax loo qariyo fariimahana si sir ah la isugu diro welibana waa qaab aan xataa laga shakiyayn afka carbeedna waxaa lagu yidhaahdaa qaabkaas shifra afka ingiriisigana code afkeena hooyana dahsoone waxayna ku hoos qarin jireen dhismayaasha waxa ay barteen qaab wax loo dhiso kadibna dhismaha aad loo qurxiyo oo la nashqadeeyo naqshadaasna loogu hoos qariyo astaamaha shaydaaniga ah qaab ay iyagu u fahmayaan marka la arkana waxaa loo malaynayaa farshaxan keliya magacan wastaadada xorta ahna waxa ay ula baxeen maadaama ay iyagu qaab dhismeedkaas ugu horreeyeen oo barteen balse macnaha ereygu daawada sida uu ka xeel dheer yahay ee sidani waa sida ay iyagu sheegtaan
waxayna astaan ka dhigteen mastarada dhismaha iyo diiradda ama jiheeyaha. sidaas ayay ku noqdeen ururkan maasooniyadda, waxayna noqdeen hantiilayaasha Yurub iyo caalamka oo dhan. waxa ugu badan ee ay shaydaamadu ku siin karaan waa hanti iyo dahab. dahsoonaantoodaasina waxa ay noqotay sirta awooddooda oo wax qarsoon aan la arkayn cidina lama dagaalami karto. maasooniyadda arrimaheeda meel walba maanta waad ka maqlaysaa, balse xaqiiqada ma taabanayaan oo waa faraguudkood. sababta oo ah iyaga ayaa sidaas la raba oo ma doonayaan in xaqiiqadooda la ogaado, balse anigu xaqiiqadooda ayaan kuu sheegayaa. sababta oo ah aniga ayaa ahaa maasooni. sir culus ayaad haddana iga ogaatay. waxaan ahay maasooni ka gaadhay derajada 21aad, waana derajo heer sare ah oo waxa ay ka kooban tahay maasooniyaddu 33 derajo. markii aan derajooyinkaas u kala gudbayeyna waxa aan bartay sixirkan. xubnaha derajooyinka isaga gudba oo dhammina ma noqdaan saaxiriin, ee xubnaha iyagu doorta ee u badheedha ayuunbaa noqda sixiroole. aniguna kuwaasaan ka mid ahay, balse hadda waxaasoo dhan dabada ayaan ka tuuray oo waanigaa adiga ku soo horfadhiya ee xaqiiqada kuu caddaynaya. haddii aan si kooban oo korkaxaadiisa kuugu sheego, maasooniyaddu waa raaska 13aad ee reer bani Israa'iil, oo yuhuuddu sida loo yaqaano ee qur-aankeenu xusay waa 12 raas ama jifo. jifo kastaana waxa ay leedahay habnololeed u gaara. maasooniyadduna waa xubno ka soo irdhoobay 12kaas raas oo samaystay raaskan ay ula baxeen maasooniyadda. waa raaska 13aad ee yuhuudda. hawshooda ay u igman yihiinna waa dib u cusboonaysiinta dhismaha haykalkii nebi Suleymaan oo Qudus laga dhiso. ha i weydiin sababta ay haykalkaas u dhisayaan, dib ayaan kaaga sheegi doonaaye. balse hadda waxa keliya ee ay tahay inaad ogaataa waa in dhismaha haykalkaas ay shaydaamadu u waxyoodeen oo dhegta ugu rideen. waxaan arkaa inaad dhayalsanayso waxaan kuu sheegayo, balse waxba ha degdegin. salaad walba xilligeeda ayaa la tukadaayey. aniga ayaa wax walba marka la gaadho kuu balballaadhinaye. waxa aad ogaataa maasooniyadda iyo kabaala oo ah sixirka madow ee aynu ka soo faalloonnay inay mid uun yihiin. waxayna yuhuuddu aaminsan yihiin markii uu nebi muuse ilaahay u soo dhiibay kitaabkii towraad inuu diintii caadiga ahaydna qoraal ahaan ugu soo dhiibay, siraha kabaalana uu afka uga soo sheegay, oo maadaama oo ay siro yihiin aanu qorin. muusena uu in gaara u xushay inay sirahaas tuurta u ritaan oo ay hayaan, welina ay sidii yihiin sirihii oo sidii loo kala dhaxlo. kabaala waa 32 derajo, waana 32 derajo ee hore ee maasooniyadda. ruuxa 32 derajo ka gudbaana waxa uu awoodayaa inuu la midoobo rabbigii. daawade, rabbigaasi ma aha ilaaheenna ee waa ibliis iyo dajaal cawar. derajada 33aadna waa derajada ay ku faanaan ee xubnaha gaadha ay sida rasmiga u noqdaan raaska 13aad ee reer bani Israa'iil. sidaa awgeed ayaan anigu u doortay inaan noqdo saaxir, sababta oo ah aqoon badan ayaa ku duugan sixirkaas kabaala. markii aan marayay derajada 19aadna waxa aan bartay sir culus oo cajiib ah oo ka mid ah siraha sixirka kabaala, waana inaad eegmo keliya ruux ku dili karto. waana waxa loo yaqaano isha sharka ama caynu shar ama the evil eye, amaba lahjada sixirka sida ingiriisi ahaan loogu yidhaahdo enhara, carabi ahaanna enhara. waana halka ay ka shidaal qaataan isha dadka ku dhacday iyo xasadkuba, oo labadaasiba dadka way dhibaatayn karaan. balse qaabka aad adigu u maamulayso ee dhankii aad doontaba aad ugu jihaynaysaa waa waxa aan bartay ee saameeyey. maasooniyaddu waxay leedahay faracyo badan oo ay ka mid yihiin bahda roskros, bahda qalfoofka iyo dhaadadka ama skull and bones, bahda Ku Klux Klan oo loo soo gaabiyo KKK, iyo bahda Illuminati. mid walibana waxa ay leedahay hawl iyada u khaasa oo loo igmaday, balse dhammaantood waxa ay ka shidaal qaataan maasooniyadda weyn oo iyada ayaa dhashay oo naas nuujisa, ujeedooyinkeeda kala gedisanna u kala igmata.